ciidan ayaa ka qalin jabiyay kuliyadda tababarada booliska ee dowladda deegaanka Soomaalida. ciidamadani oo isugu jira kuwa booliska federaalka, kuwa deegaanka Soomaalida iyo heerarida ayaa in muddo ah tababarka layliga askarinimo ku qaadanayay kuliyadda tababarada booliska dowladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga. munaasabadda qalin jabinta waxaa ka soo qayb galay hoggaanka nabadgelyada dowladda deegaanka Soomaalida ahna ku siisimaha madaxweynaha Mudane Dayib Axmed Nuur, komishineerka komishinka booliska federaalka, komishineer General Dambalash Gabra Mikail, komishineerka komishinka booliska dowladda deegaanka Soomaalida General Cabdi Cali Siyaad iyo mas'uuliyiin kale. ugu horreynna waxaa munaasabadani ka hadlay hoggaanka nabadgelyada deegaanka ahna ku siisimaha madaxweynaha deegaanka Mudane Dayib Axmed Nuur. qalin jabiyaasha munaasabadan quruxda badan ee maanta ka qalin jabiyay tababarka boolisnimo iyo eheladooda guud ahaan waxaan leeyahay bagaad nabad ugu soo gaadheen maalintan quruxda badan ay qalin jabin hayaan xoog ciidan boolis oo ku soo biirin doona guud ahaan awoodda ciidan ee dalka iyo deegaankaba xoog. waxaan jeclahay inaan idhaahdo hambaliyo bagaad idinkuna nabad ugu soo gaadheen qalinjabiyaasha muddadii dheerayd ee 6 bilood ahayd ee aad ku xaraysneedeen kuliyadda tababarka booliska. waxaad og tihiin amaan wada ognahay xirfadda boolisnimo waxaa la odhan karaa waa boolis dhab ah marka ay ka helaan kalsoonida iyo aaminaadda shacabkooda ay ku qabaan. isla markaana waxaan odhan karaa guud ahaan booliska dalkeenna iyo kan deegaanka Soomaaliduba waxay hanteen qulubta shacabka oo kalsooni badan ku qabta sugidda amniga iyo maaragtay sida ay ugu dhiiran yihiin in ay cid walba oo dalka iyo deegaankaba isku dayda inay xasiloon darro ka abuurto inay gacan ku qabtaan. waxaanu ahaantii aad ugu bognay tababarka quruxda badan ee noocyada kala duwan leh aad qaadateen. sidaas darteed xubnaha guud ahaan maanta ka qalin jabiyey kuliyadda booliska deegaanka Soomaalida oo run ahaantii hooy u noqotay tababarka ciidamada booliska ee federaalka dalka iyo kuwa deegaamadaba taas oo ay keentay run ahaantii dadaalkii faraha badnaa ee ay gelisay xukuumaddu sidii ay u noqon lahayd kuliyad soo saarta ciidan tayo iyo tiraba leh run ahaantiina awood badan u soo kordhisay ciidanka gaar ahaan deegaanka maadaama tababarka ay la qaataan ciidanka dalka oo ay muddada ay xaraysnaadaanna ay tahay muddo dheer tababarka ay qaataanna uu yahay tababaro noocyo kala duwan leh oo la awooda la quwada ciidanka federal booliska awooddaas oo run ahaantii aan uga faa'iidaysanay sidii loo baahnaa. waxaan leeyahay waxaad noqon doontaan kuwo qayb ka noqda laga bilaabo maanta oo aad idin dhammaaday tababarkii aad ku xaraysneedeen inaad qayb ka noqotaan sugidda amniga dalka iyo deegaankaba. run ahaantii waxaana farxad gelinaysa in deegaankeennu uu noqdo deegaan run ahaantii nabdoon oo instituushanada ama hay-adaha dawliga ay ku yaallaan ay noqdaan kuwo tayo leh isla markaana ay ka faa'iidaystaan dalka. waxaan u mahadcelinayaa jaamacadda booliska ee dalkeenna Itoobiya taasoo iyaduna run ahaantii garab buuxda ka siisa kuliyaddan sidii ay u noqon lahayd kuliyad soo saarta haliyeeyo boolisa oo suga amniga deegaankeenna. waxaan leeyahay dhammaan marti sharafta ka timid heer dal booliska leh iyo jaamacadda booliska dalka ku soo dhowaada deegaankeenna Jigjiga. qalin jabiyaashana waxaan leeyahay idiin noqoto farxad ballaadhan. waxaana filaynaa in dafcado kale oo badan ay ka qalin jabiyaan halkan maadaama amnigu uu yahay waxa guud ee horseeda in la helo barwaaqada aan doonayno inaan gaadhno. amni la'aan lama gaadhi karo barwaaqo. waxaa dowladda dalkeenna run ahaantii ka go'an in dalkeennu uu noqdo dal uu sugan yahay amnigiisa isla markaana dadkiisu ay ku noolaadaan xasilooni ballaadhan. sidoo kalena nolosha bulshadeennu ay isbeddesho oo ay noqoto dadkeennu kuwa ku nool barwaaqo. sidaas darteed xoogagan faraha badan ee amni ee la diyaarinayo waa kuwii xaqiijin lahaa in dalka iyo deegaankuba ay noqdaan deegaamo iyo dal qurux badan oo barwaaqo ah.
dhinaca kale komishineerka komishinka booliska federaalka komishineer general Dambalash Gabra Mikail ayaa munaasabadani ka hadlay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa ክልል አስተዳደርና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ክቡር አቶ ጠይብ አህመድ የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል መስፍን አበበ وورين هجان كان مدقلية دولدجان كالصوماليدا مدن طيب أحمد مدحوينها جامعة بوليس إثيوبيا كوميشنير جنرال مسفين أبابي كلجندا مدح الدنبي كورتك بوليس كفدرال إثيوبيا زلال منجستو يدمان كوميشنير ديجان دا إيه بوليسكا sidoo kale dhammaan heerarka kala duwan ee ciidamada booliska federaalka iyo dhammaan ku-xigeenada jaamacadaha ciidanka federal booliska madaxda iyo macallimiinta booliska dowladda deegaanka Soomaalida iyo dhammaan madsarafta kale ee lagu marti qaaday jijiga iyo mawaaxigeeda saraakiisha kala duwan ee ciidamada qaranka ardayda sharafta badan ee ka qalin jibisay dankan mudanayaal iyo marwooyin maanta waxaa si gaar ah u qalin jibinaya ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee gurmudka degdega ee federal booliska taasi oo ku cad isbeddelka guud ee la sameeyay qorshe ahaan waxaana si wada jir u qaatay dowlad deegaanka Soomaalida iyo dowlad deegaanka Hiirarida taasi oo si wada jir u qaateen in ay ku tababaraan booliska caadiga ah taasi oo ah mid wadankeenu u baahan yahay oo ah mid adeeg ay ku bixinayaan shacabkana ugu adeegayaan maanta waa maalin ay qalin jabiyeen arday si gaar ah loo tababaray waxaana leeyahay hambalyo iyaga iyo dhammaan qoysaskoodaba maanta arday qalin jabinaysa waxaa gaar u ah waa ciidamada gurmudka degdega ah waxayna barteen shuruucda caalamiga hadday tahay tan sharciga iyo hadday tahay tan qaabka ay u labisan yihiinba waa kuwa caalamiya ambaliyo kuliyadda booliska dowladda deegaanka Soomaalida ayaa isbeddelkii kadib noqotay kuliyadaha ugu waaweyn ee lagu tababaro ciidamada kala duwan ee dalka maadaama ay xukuumaddu juhdi badan gelisay kor u qaadida miiqaamka kuliyadda isla markaasina lagu sameeyay dib u habeyn ballaaran